guurkii ugu waqtiga gaabnaa dunida oo ka dhacay dalka Kuwait lamana u dhashay dalka Kuwait ayaa isfuray daqiiqada kadib markii ay isguursadeen kala taga lamanahan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ninka uu caruusadiisa cusub ku tilmaamay axmaq taas oo barta Twitter-ka aad looga hadalhayo labada lamaane ayaa ku kala tagay isla maxkamadii ay isku guursadeen iyaga oo laba jeer kala saxay laba qandaraas guur oo ay midna isku guursadeen midna ay ku kala tageen caruusada ayaa la sheegay inay carootay kadib markii uu ninkeedu ku caamirtay mar ay hanta turootay iyaga oo ka soo baxay albaabka maxkamadii ay isku guursadeen markaas oo halkii uu ka caawin lahaa ninku uu xaaskiisa cusub ku tilmaamay axmaqad walow ay taasi qalad tahay haddana dadka qaar ayaa ku doodaya inaysan taasi dhammayn wax ay ku kala tagaan lamaanahan hadda uun isguursaday dalka Kuwait waa dalka labaad ee ugu furiinka badan dunida Carabta iyadoo tirakoob ay samaysay wasaaradda cadaaladda dalkaasi Kuwait sanadkii 2017 lagu muujiyay in boqolkiiba 60 guurarka dhaca ay ku dhamaadaan furiin waxa taasi loo aaneynaya dadka oo isku guursada dana dhaqaale si ay lacag badan uga helaan dawladda dalkaasi